habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka caawiya caalamka waa Cusmaan Cabdi Xasan qodobada wararkeena ugu waaweyn caawa waxa ay kala yihiin Baaris ay BBC-du samaysay ayaa qof shaqaale ka ah Koonfur Afrika uu su'aal ka keenay dhimashada dad looga shakiyay COVID-19 dadkaasi oo qabow ba'an uu ku helay teendho ku taallay bannaanka isbitaalku uu beeniyay inay dhibaato jirtay warbixin gaar ah ayaynu idinkaga haynaa Koonfur Afrika wararkeena kalena caawa waxa ka mid ah ninkii ku dilay New Zealand koob iyo kontonka ruux masjid ayaa maxkamad kula kulmay isaga oo xukun sugaya dhibanayaasha ka badbaaday iyo qaraabadooda suuqyada magaalada Hargeysa waxa ka jirta qudareeri iyadoo inta yar ee taalana qiimuhu uu 4 jibaar noqday kadib rabshadii ka dhacay Itoobiya oo qudaarta laga keeni jiray gawaari aad steerinka faraha ka qaadi karto oo la filayo in horaanta sanadkan UK lagu arko balse ma dareemaysaa inay ammaan yihiin kala soco BBC News Somali Television-ka raadiyaha online-ka iyo bogagga bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka tirada ugu dambaysa ee viruska corona ee dalalka Faransiiska iyo Talyaaniga dhamaadkii toddobaadka waxay keentay inay qubarada caafimaadka ka walwalaan kororka Yurub Faransiiska waxa laga soo sheegayaa shalay in ka badan 4800 oo caabuq cusub ah waa tiradii ugu badnayd hal maalin ilaa iyo bishii May mas'uuliyiintu waxay sheegayaan in virusku uu si weyn ugu dhaxfidayo dadka ka yar 40 sano taasi oo ay uga wacan tahay dadka yaryar oo ay ka qayb galayaan isu imaatinada waaweyn Talyaaniga oo mar aha ubuucda safarka ayaa sidoo kale la arkay kiisaskii ugu badnaa ilaa iyo May taasoo la xiriirinayo dalxiiska cilmi baaris cusub ayaa muujinaysa khatarta viruska corona ee biyaha wasaqda ah cilmi baaristu waxay muujinaysaa in virusku uu ku badbaadi karo dhowr maalmood biyaha wasaqda ah taasina waxay horseedaysaa khatarta caafimaad marka bulaacadaha ku furmaan biyaha caadiga saynisyahanada ayaa ku taliyay in sare loo qaado nidaamka loo daaweeyo biyaha wasaqda waxay sheegayaan in loo baahan yahay cilmi baaris dheeraad ah si loo go'aamiyo heerka uu la eg yahay caabuqa mas'uuliyiinta Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegaya in tirada kiisaska cusub ay kordhayaan 17 gobol ee dalka qaynuunka cusub ee maanta hirgalayna afka iyo sanka ayaa la daboolanaya magaalada Seoul haddii aad gudaha ku jirto iyo haddii aad banaanka socoto adduunka kalena 800,000 ayay dhimashadu ka badan tahay kiisaska adduunka waxa ay ku dhow yihiin 23.5 milyan kiisaska Mareykanka waa 5.7 milyan dhimashaduna waa 176,000 waa tirada ugu badan adduunka hay'adda cuntada iyo daawada Mareykanka ayaa bixisay amar degdeg ah in dheecaanka plasma lagu daaweeyo bukaanada qaba viruska corona Koonfur Afrika waxa ka jira tirada ugu badan kiisaska viruska corona ee Afrika hadda waa dalka shanaad ee ugu kiisaska badan waxaana ka jira in ka badan 600,000 dhakhtar halkaasi ku sugan ayaa BBC-da u sheegay in bukaanada qaba corona ay u dhimanayaan kulka jirkoodu uu hoos u dhacay kadib markii saacado lagu qasbay inay fadhiyaan teendooyin isbitaal oo qabow ah Koonfur Afrika ayaa hadda bilowday inay hoos u dhigto viruska balse waxa kordhaysa carada ku saabsan sidii loo maareeyay xaaladda caafimaad wariyaha BBC-da Andrew Harding ayaa warbixintan soo diray waa kan Aadan Maxamed Cabdi Saalimiin qabowuhu waa uu xun yahay magaalooyinka ku yaala koonfurta Johannesburg iyadoo gobolku dhacay heerkulku waxa uu ka hoos maray eber waxa aanu mid isbitaal maxalli oo ku yaala Sobekan kadib markii qof ka shifay uu noo sheegay in bukaan lagu tuhmay COVID-19 lagu qasbay inuu sugo mararka qaarkood maalmo teendhadan qabowga badan waxa ay ku doodeen dadku inaanay ugu dhimanayn fayruska halkan laakiin tuhunku uu yahay in jirkooda hoos u dhacay isheena wararku waa dhakhtar ku sugan gudaha isbitaalka hadda ayaan wacaya iyada way hadlaysaa maxaa yeelay waxa ay ka careysan tahay waxa ay aragtay isla markii uu gobolku dhaco waxay noqotaa cabsi waad arki kartaa in bukaanku hoos u dhacayaan waa qabow daran teendhada waxay ka hooseysaa -4 waxaan dareemayaa walwal iyo rajo la'aan hoos u dhaca xaraaradda jirka waa waxa ugu weyn ee dhimashada sababa gaar ahaan teendhada tani ma ahayn miya hal mar maya waxaa jiray qabow badan waa dhibaato imise bukaan ayaa iska dhimanaya waxaan weydiisanay mas'uuliyiinta halka lacagtii loo qoondeeyay teendooyinka iyo sidoo kale inaan shaqaale dheeraad ah helno balse jawaab kama helin
hal bukaan oo ku qaatay saacado teendhadan waa Martin Molombo. hooyadiis ayaa waxay haysaa sawirka hore ee iskuulka. waa qabow waad ogtahay inay qaboobo tahay waad ogtahay sida ay teendhadu tahay hal dhinac ayay ka furan tahay. imisa ayuu sidaa ahaa? aad ayay u dheer tahay. tani ma aha sheeko qarsoon. inkastoo South Africa ay si guul uga gudubtay safmarka markii ugu darnayd, waxaa jiray caro baahsan halkan oo ku aadan maamul xumo iyo eedeymo musuqmaasuq. socodka gudaha waxaanu aragnay boqolaal sanduuq oo la tuuray oo qalabka BB ah. inta badan xaqiiqdii waxaa tuuray dambiilayaal hadda isku dayaya inay qariyaan dembigooda, iyadoo dawladduna ay ballan qaaday inay ugaarsan doonto. dhammaan reer South Africa waxay ka walwalsan yihiin tusaale ahaan halka dhaqaalaha lagu xaday, halkee ayay si khaldan ugu isticmaaleen, iyadoo alaabooyinkan ay tahay inaan soo iibsanno oo qaali ay yihiin. cisbitaalka Sobeken, diirinta u dhaxaysa maamul xumo iyo musuqmaasuqa ma cadda, laakiin fariinta gudaha ee loo soo dusiyey BBC-da ayaa sheegaysa sida ay quburadu uga digeen in la isticmaalo teendhooyinka South Africa xilliga qaboobaha, iyagoo oo ku tilmaamay bini'aadanimo xumo. dawladda dalka ayaa diiday sheegashada qofka wax kashifay, waxayna noo sheegeen inaanay jirin caddaymo ku saabsan in bukaanka halkan uu ugu dhimanayo hoos u dhaca xaraaradda jirka. waxaana loo sheegay xaaladda halkan inay soo wanaagsanaatay maalmihii dhowaa, qayb ahaan markii tallaabooyin la qaaday, qayb ahaan maxaa yeelay heerka fayraska ayaa si aad hoos ugu dhacay, laakiin dabcan isbedeladaasi ayaa aad uga fog dadka qaarkood. habeen kale oo qabow ah ayaa ka bilowday dalka, halkaasoo fayrasku muujiyey geesinimo iyo hufnaan. bal markana aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararkeena caawa. maxkamadda gobolka Banaadir ayaa 9 sano ku xukuntay agaasimihii guud ee wasaaradda caafimaadka Cabdullaahi Xaashi Cali, halka madaxa xisaabaadka ee mashruuca wacyigelinta iyo caafimaadka Mahad Abshir Maxamed isna lagu xukumay 12 sano. sidoo kale xisaabiyaha mashruuca malaariyada iyo HIV-ga AIDS Bashiir Cabdinuur ayaa isna lagu xukumay 3 sano. dhammaan madaxda la xukumay ayay maxkamaddu sheegtay in lagu helay xatooyo xoolo dadweyne. sidoo kale maxkamaddu waxay sii daysay 5 agaasimo kadib markii maxkamaddu sheegtay in ay ku waysay qodobadii lagu soo eedeeyay. wafdi ka socda ururka ECOWAS iyo hogaamiyaasha cusub ee militariga Mali ayaa gaaray heshiis dhowr qodob ka kooban kadib maalin wada xaajood ah oo la doonayay wadanka in lagu soo celiyo laga soo celiyo xukunka militari. labada qaybood ma bixin wax faahfaahin ah. wadahadallada ayaa maanta dib u bilaabmaya. wadahadallo ayaa ka bilaabmay Geneva oo la isku dayay in lagu sameeyo dastuurka Suuriya. kulanka oo ay soo qabanqaabisay qaramada midoobay waxaa ka qayb galayay dawladda, mucaaradka iyo wakiilo ka socda bulshada rayidka. wareegii ugu dambeeyay ee wadahadallada ayaa burburay iyadoo aan la heshin. qaramada midoobayna wax rajo fiican ah kama qabto in wax weyn ka soo baxaan. maxkamad ku taala New Zealand ayaa bilowday dhageysiga kiiska nin cadaan ahaa oo qirtay dilka 50 qof oo ku cibaadeysanayay labada masjid sanadkii tagay. waxaa maxkamadda lagu wargeliyay in uu qorsheynayay inuu dilo tirada ugu badan ee uu awoodo. dadkii ka badbaaday weerarka iyo qaraabada dadkii ku dhintay ayaa ka hadlay maxkamadda maanta. Shayma Qaliil ayaa warbixintan New Zealand ka soo dirtay. Caaisha Afrax ayaana soo jeedinaysa. Bismillahir Rahmanir Rahim. cadaa alcalyaan wuxuu ka mid ahaa 51 qof ee lagu dilay weerarkii magaalada Christchurch. waalidiintiisu noloshoodu waxay isku bedeshay mid murugo badan. mar kasta waxaan ka fikiraa wiilkaygii caddaa, xaaladiisii waqtiga weerarka socday. muxuu ka fikirayay markuu ogaaday inuu ka tagi doono adduunka? ninkan gacmaha ka xiran waa qofka mas'uulka ka ah weerarka. Brenton Tarrant intay maxkamaddu socotay wuu aamusnaa iyadoo laga hadlayay habka uu u soo maleegay weerarkan, isagoo baaritaan ku waday dadka uu bartilmaameedsaday waqti sanad ka badan. xilligaasi wuxuu weerarka u soo qaaday in uu hubiyo in tirada ugu badan ee dadka cibaadaysanaya ay masjidka joogaan. eedaysanahu wuxuu sii ogaa kii ay uga badan tahay in ay uga ordaan dadka cibaadaysanaya. macluumaadka ku aadan sida uu dadka u toogtay Tarrant waxay ahaayeen kuwo qaracan badan. dadka iyagoo ka cararayay ayuu xabadda ku waday, meel ay uga fakadaanna ma jirin. Mucaad Ibraahim wuxuu ahaa 3 jir,
waxaa lagu dilay masjidka alnuur 3 xabad ayaa lagu dhuftay isagoo aabbihiis lugtowga dhegan dadkii badbaaday qaar ka mid ah ayaana BBC-da u warramay ninka qoriga sitay iyo anigu indhahayaan isku qabannay waan arkayay ilbiriqsiga uu aniga ila beegsaday 9 xabadood ayuu igu dhuftay intay maxkamaddu socotay hooyooyinka qaar ayaa sharaxay xanuunka ay dareemayaan ubax ayuu isiin jiray sanad kasta dhalashadayda laakiin meydkiisa ayaana loo keenay waan ku cafiyey Mr. Tarrant maxaa yeelay naceeb iyo argudasho ma aqaan si aan fahmi karin ayaad iigu xadgudubtay kuma cafin karo waxaad isi siisay quwad aad ku qaaday nolosha 51 qof dambiga kaliya oo ay galeenna waa inay muslimiin ahaayeen imaamka masjidka alnuur ayaa maxkamadda ka hadlay isagoo u sheegay Tarrant in la khalday waxaan nahay bulsho nabadgelyo iyo jacayl badan ayuu yidhi oo aan u qalmin dhibaatada aad gaarsiisay sidoo kale qoyska Tarrant ayuu u sheegay inuu ixtiraam u hayo maadaama ay iyaguna dhibaataysan yihiin maalmahan soo socdo way socon doontaa maxkamaddu inta aan garsoorayaashu xukunka ridin Brenton Tarrant ayayna u badan tahay inuu noqon doono qofkii ugu horreeyay dalka New Zealand xabsi daa'in ah loo taxaabo abid dalkaasi mar walba waxaad nagala socon kartaan BBC Somali Facebook fadlan raadi BBC News Somali halkaas oo aad ka heli doonto muuqaallo falanqayn dheeraad ee wararkii ugu waaweynaa si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya caalamka nagala soco BBC Somali Twitter iyo Instagram weli waxay noo soo socda suuqyada qudaarta Hargeysa oo ay qudaartu ku yar tahay iyadoo inta taalana qiimuhu uu 4 jibaar noqday kadib rabshadihii ka dhacay Itoobiya oo qudaarta laga keeni jiray weli waxaad daawanaysaan caawiya caalamkaan idin xusuusiyo qodobada wararkeena ugu waaweyn baaris ay BBC-du samaysay ayaa qof shaqaale ka ah Koonfur Afrika uu su'aal ka keenay dhimashada dad looga shakiyay COVID-19 dadkaasi oo qabow ba'an uu ku helay tanda ku taallay bannaanka isbitaalku uu beeniyay inay dhibaato jirtay ninkii ku dilay New Zealand 51 ruux masjid ayaa maxkamad kula kulmay isagoo xukun sugaya dhibanayaasha badbaaday iyo qaraabadooda qiimaha qudaarta ayaa sare u kacay oo 4 jibaarmay suuqyada magaalada Hargeysa taasi oo ay sababtay rabshadihii dhawaan ka dhacay Itoobiya oo ay qudaarta uga timaado jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax bannaanida ee Soomaaliland waxay leedahay dhul ballaaran oo wax lagu beeran karo haddana dadka deegaanka waxa ay ku tiirsan yihiin qudaarta laga keenay Itoobiya sida uu ku soo warramayo wariyaha BBC-da magaalada Hargeysa Sidiiq Maxamed Burmad dumarkani way niyad jabsan yihiin qaar badan oo kale ayaan soo shaqo tagin markii ay waayeen ganacsigii ay ka shaqayn jireen iyaga iyo macmiilkoodaba waxa soo gaadhay saamaynta rabshadaha Itoobiya oo khudaartu ay uga yiman jirtay bakhaaradan shaqo ayaa ka socon jirtay saakase lama soo xaadirin waxa weeyaan manida waxa nooga imiga sanadadan ugu dambeeyay siiba bilahan ugu dambeeyay waxa la oranayaa maanta wadadiiba xidhan barina way furanta gaari yar baa yimid oo baxsad ku yimid gaarigii Hargeysa oo dhan markii la boobay kiisitana sixirkii buu libilaabay ummadii wixii markuu libilaabay anagu dadkii maxaanu ka helaynaa maxaanu ka faa'iideynaa maxaanu saasiinayna waa mushkilad marka saamaynta weyn ee dhibteeda yeelatay waxaan uga fadhinaa ilaan risiqeena iyo cuntadeena Itoobiya ku xinaan mayno laakiin xalkay xukuumaddu ka gaadhisay iyadaan uga fadhinaa
dhowr iyo 10 gaari oo sida noocyada khudaarta ayaa subax walba iman jiray suuqan oo kaliya bakhaarkana kamida kuwa lagu soo rogo khudaarta Itoobiya laga keeno ee wali si furan isagana waad arkaysaa wax badan ma yaalaan in yaro basala iyo in yaro baradha ayaa ilaa imika yaala oo dirqi ay ku soo heleen iyaga laftigoodu maalmihii hore bakhaarkani uu camirnaan jiray ilaa xagga sare waxa tuulaan jiray jawaano kala duwan oo noocyada khudaarta ay ku jiraan laakiin imika inta yar ee taalaana qiimaheedu wuu afarlaamay maxay tahay sababta dalka wax looga beeran waayay dhulkan ballaanaantiisa dib mooyee dheef kuma qaban ninka lehe waxa uu yaqaanaa inay tahay beertiisii laakiin waxba ugama baxaan isna wuu ku qatan yahay cid kalena uma ogola inay beerato neefafkiisa mooyaane xitaa waa ka mamnuuc in xoolo kale ay daaqaan waxba walaal lagama faa'iideeyo waa dhulka iska yaalo una ka awow de waa leenahay una leeyahay kuwii horanaana wax ka qabsan kuwan dambanaana wax wali ka qabsan oo iska yaalowna laakiin inta yar waxa la daaqdaaqsiista xoolaha yar ee xaafada ayaa iska yar daaqdaaqa xoolaha dadka kale looma ogolaado inta xaafada xoolaheega yar uma yar daaqdaaq mararka qaar lahaanshaha seerayaasha muran ayaa ka abuurma waa la isku dilaa khasaare nafeed ayaana ka dhasha buuraha laftooda dad baa jira beertoodii u yaqaana oo gaar ka haya badi deegaanada Soomaaliland waa wada caynkan oo meel cid gaar ah aanay lahayn way yar tahay dadka qaar baa ku dooday in dhulkani qarfa yahay oo aanay waxba ka bixi karin beertan si ayaa doodaasi burinaysa waxay ka mid tahay dhowr beerood oo hay'ad Kuwait laga leeyahay ay maalgelisay qudaarteedu ganacsi ayay gashaa عدد العائلات اللي ممكن تستفيد من هذه الخضروات tirada qoysaska ka faa'iideysan kara khudaartan waa tiro aad u ballaaran laga yaabee in ay gaarayso kumaan kun oo qoys inay ka faa'iideysanayaan waxa ka soo go'a beertan waxaan isku dayaynaa in aan soo saarno oo aan daboolno baahida dadka innagoo ku daboolayna khudradda ka soo baxday dhulkooda ilaahay amarkiisna door weyn ayay beerteenna ka qaadatay dhibaatada yaanyan la'aanta ka jirta beledka waxaan isku dayaynaa in aan baahidaasi daboolno innagoo kaashanayna alle ballanqaadyadii xukuumaddan talada haatan haysa waxaa ka mid ahaa kor u qaadista wax soo saarka beeralayda maanta si wataa la khudrad la'yahay sidiiq maxamed burmad BBC Hargeysa ardayda ku nool Kashmirta India ee maamusho ayaa seegay inta badan sanad dugsiyeedkoodii sababtuna waa dhibaatada aan dhamaadka lahayn ee ka taagan gobolka markii hore waxaa lagu soo rogay bandow markaasi lala beegtay waa bandowgaasi oo laga laabtay go'aankii siinayay maqaamka gaarka ah kadibna waxaa xigay safmarka COVID-19 oo mar kale albaabada u xiray iskuulada internetka oo gaabis ah ayaana suurto gelinayn in ardaydu qaataan fasal online-ka laakiin dadka qaar ayaa isku dayaya in ay bedelaan taas oo iyagoo casharo ku bixinaya banaanka farxaan maxamed jimcaale ayaa ka waramaya carruurta ku nool Kashmirta India ee maamusho ayaa iskuul la'aan ah muddo ka badan sanad gobolka ayaa xirnaa kadib markii sanadkii hore lagala laabtay maqaamkii gaarka ahaa ee uu lahaa si tartiib ah ayuu u soo furfurmayay markii fayraska corona uu ku dhuftay bishii March theta is equal to +6 -6 the left 2019 August 5 से आज के दिन तक number of ardadayna 15 maalmood wax ka badan iskuul maysan aadin ilaa bishii Agost sanadkii hore niyad jab iyo dhibaato maskaxeed ayaa haysata macallin ahaan iyo waalid ahaanba waad ka walwalaysaa carruurtaada aad bay ii murjisay aad bay ii xanuunjisay qof walba waa sidaa yaa eegan kara ilmo dhibaataysan path ko trace karke assume karte hain ki bhaiya ye path ऐसे ही ये नॉर्मल वहां है नहीं Munir waxa uu go'aansaday in uu banaanka casharo ugu dhigo carruurta si uu caawiyo laakiin waxa uu gacan siin karaa oo kaliya in kooban dawladda sidoo kale waxa ay bilowday fasallo online ah laakiin arday walba internet ma haysto sababtoo ah internetkii xoogganaa waa la mamnuucay waxaan soo maray dhibaato aanu arday kale oo caalamka meel ay ahaataba soo arkin weligii xitaa dadka meelaha fogfog jooga ee dalka waxay haystaan 4G internet aniguna halkan ayaan ku xanibanahay xawaaraha internetka moobilkeenna ma dhaafo 50 kilobytes ilbiriqsigiiba macallimiintu waxay yiraahdaan fasallada online-ka wax micno ah ma lahan
haddii ardaygu uusan haysan internet iyo mobilka caaqilka ah. haddii macallinku internet haysto ardaygii ma haysto haddii labadoodu haystaan internetkii ayaa daciif ah qof walba ayaa ku wareeraya wayna adag tahay in wax lagu barto. markana wararka ciyaaraha ee caawa. Bayern Munich ayaa xalay 1-0 ku garaacday PSG ciyaartii finalka ee Champions League. daqiiqadii 59aad kubaddii madaxa ee ciyaartooyga qadka dhexe Kingsley ayaa guusha keentay. waa markii lixaad uu naadigan Jarmalka ku guuleysto horyaalka halka PSG-na ay ahayd markii ugu horeysay ee ka soo muuqato finaalka. markay ciyaarta dhamaatay kadib waxaa maamulaha Bayern Hansi Flick uu sheegay in ciyaartooydiisa ay geliyeen isaga iyo tababarayaasha kale rajo fiican. Ja, es gibt so einen schönen Spruch. xigmad ayaa odhanaysa guushu waa kiradana bil kasta ayaa la bixiyaa. tani waa waxa uu naadigu soo bandhigo maalin kasta iyadoo maankoodu uu jiro garoonka. marka waxa ayna gelisay aniga iyo shaqaalaha tababarka in aan ku faraxsanaano la shaqaynta ciyaartooydan qiimaha leh. Manchester United-na ma iibin doonto Paul Pogba ka hor bilowga xilli ciyaareedka soo socda ee horyaalka Ingiriiska. sidaasina waxaa sheegay wakiiladiisa. ciyaartooygan reer Faransa waxaa la filayay in uu dhaqso bilaabo wada hadal ku saabsan heshiiska cusub. 27 jirkan waxaa heshiiskiisa Old Trafford ka haray 1 sano. bal qiyaas dhimista xawaaraha ee waddo mashquul ah iyo adigoo gacmaha ka qaada isteersada gaariga. warshadaha sameeya baabuurta ayaa sheegay in durbaba ay farsamo ahaan suuragal tahay oo hadda dowladda Ingiriiska ay sheegayso wadista gacmo la'aanta ah in laga yaabo in ay sharci ka noqoto UK horaanta sanadka soo socda. kaliya waxaa hadda la daahfuray wada tashi in lala sameeyo shirkadaha baabuurta. aadan maxamed cabdi saalimiin ayaa ka warramaya. xaaladda waddadu waa ay xun tahay maantay. gacan ku haynta gaarigaada ma ku wareejinaysaa kombiyuutarka? hands free. wadda gaar loo leeyahay oo aan lahayn gaadiid kale. waxa aan tijaabiyey aniga oo ku socda waddada baabuurta. tani waa dareen cajiib ah, gaar ahaana xakamaynta taxadirka sidayda oo kale. gaarigu waa uu iswadayaa waxaana uu raacayaa deelinta. deelimuhu halkani waa ay qalloocan yihiin. tijaabadayduna waa in aan taabto laakiin ma dhicin. tani dhabtii waa cajiib. weligay horay uma samaynin sidan oo kale. Very odd. I've never done anything like this before. hadda gaariga noocan oo kale ah waxa uu kuu sheegayaa inaad gacmaha saartid isteersada 15 daqiiqo kadib. siyaasiyiintuna waxa ay doonayaan inay ogaadaan haddii tiknoolajiyada la isku halayn karo si ay ugu oggolaadaan darawallada in ay gacan bannaanaadaan waqti xadidan. xaqiiqdii naf ayay badbaadin lahayd. waxaa lagu qiyaasay 10 sano in tiknoolajiyadda noocan oo kale ay badbaadin lahayd nolosha 4,000. dowladda ayaa la tashan doonta hay-adaha ammaanka iyo shirkadaha, laakiin darawallada maxay la tahay? waan ku kalsoonahay tiknoolajiyadda. waxaan isticmaalay badi waxyaabihii la soo saaray, laakiin ma jeclay in dadku aanay ku qasbanayn inay isha ku hayaan. waxaan u malaynayaa inay weli tahay in cadaalad la sameeyo. dhabtii waa waali. siyaasiyiintu weli kama hadlayaan wadisla'aan buuxda oo gaariga ah, laakiin haddii UK ay ku sii socoto waddada gacmo la'aanta ah waxay taasi horseedi doontaa isbeddel weyn oo shuruucda iyo caymiska ah. farqiga u dhexeeya inaad darawal tahood mas'uul ka tahay iyo in gaariga isaga iswado mas'uuliyadda isaga haysto waa mid aad u weyn. inta gaariga sida bani aadanka kale isu wadi karo, gaariga lagama dhigi karo mid iskiis u socda. waxa aan la halgamayaa iskudayga in la haayo isteersada. haddii aan ku noqdo waddada tijaabada ah wax badan ayay tahay in la barto iyo in siyaasiyiintu ay wax badan tixgeliyaan. darawalnimadu waa isbeddelaysaa mustaqbalka. su'aashuna waxa ay tahay sidee degdeg ay ugu doonayaan in arrimuhu ay isbeddelaan. ugu dambayntiin waxaan idiin hayaa xerada xayawaanada Washington National Zoo baanda ku jira. waa baanda aad u weyn. ilmo yar oo caafimaad qaba ayuu jimcihii dhalay. durbaba waxay bilowday inay laabta ku qabato. waa uurkii afraad baandahan 22 jirka ah. marka baanduhu da'diisu weynaataba aad ayay u adag tahay fursadda cunug caafimaad qaba uu ku dhali karo sida ay sheegayaan madaxda xerada xayawaanada. intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeena caawiya caalamka. waad ku mahadsantihiin daawashadiina ee nabadgelyo.